iga Soomaalida oo dhaca Afrikada bari iyadoo uu ku jiro gacanta gumaystaha Somaliland waxa ay noqotay bartii ugu horeysay ee laga taago calan xor ah oo ay Soomaali leedahay 26 June 1960 ma bishi cadawgii tagay caalimku ay bartaa helista gobonnimadu ma ay ahayn shaqo hawl yar dad badan baa darteed u go'ay iyadoo qaar kalena dalka doonisteeda awgeed looga mustaafiriyay balse waxay ahayd labadii bishii May 1960 markii hogaamiyaal ka socda Somaliland ay tageen magaalada London si ay u soo jaraan xiriirkii kala dhaxeeyay gumaystihii Britishka iyadoo markaasi loo ogolaaday inay Somaliland xornimadeeda qaadato 26 June 1960 Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo kamid ahaa wafdigii beriga London tagay ayaa mar uu u waramayay laanta afka Soomaaliga idaacada BBC-da waxa uu ku yiri waxay tahay in la wada maqlay maanta maxay ahayd secretary secretary jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu u dhacay ina kulli kooda darsantiin baan maraynaya maalintii Isniintii ayaan hadalkii istaad marka waxa ma dowladda Ingiriiska awalba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay yiraahaan asaxatee in meesha ku jirtay waxa la hubinayay waxaan la doonayo dowladnimada la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaana gacantooda ay galayso inay tahay in kala la hubsanayay dadka labadii casho horaan saragnayba baadniin arrinku la baarayay dadka meesha joogay iyo dadku sidoo wax doonayaan iyo saa loo eegay arrinku inuu inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay in la baarayay hadalkii waxa weeye guntiisi bisha kowdeeda July kowdeeda inaynu dowlad ahaano si aynu walaalin Soomaaliya isu raaci karno ayuu guntiis noqday dowladnimo loo qayliyaa dowladweynaha doonayna la yiraahdaa waa suura gashaa maanta deynaba soo qaylinay helay dowladnimadiina asaatay ka adag wuxuu yaariga ka sii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galnay helay dowladnimadii laakiin mas'uuliyad badan iyo dhib badan ayayna la imanaysaa markaas inagii maanta ajnabi aynu dawladda u saaraa ama aynu waddankeena ka kaxayno dhamaynkaas way naga tagay July maalinta July baynu walaaladeen Soomaaliya israacayna inaguna danteena iyo dalkeeniba iyo diinteeniba aynu u talinayna markaana ay ku hadhayba hawle haysaaye talada maanta tala weyn weey inaynu isu talin karo wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsan noo talinayna leenaga baxay ajnabi inagii maanta leeno kala tag inaynu isu talin karayn doono iyo in kalena caalamku waa inay eegay ilaahay waxa inagu la qabtay وما هذا اللي ما انتبه الدنيا كم بيننا وما هذا اللي ما انتبه الدنيا كم بيننا ما انتهيني ما بيحب بنان ما بيحب بنان guud ahaan shacabka reer Somaliland oo dhan ayaa gobonnimada u soo dhaweeyay si la yaab leh kasakow hobalada heesiyay iyagoo ay ilmadu ka qubanayso dadka oo dhami waxa ay ku faraxsanaayeen calanka isticmaarka ee dhulka la soo dhigay laguna bedelay midka ay Soomaalidu leedahay Allah u naxariistay Cabdilaahi Suldaan Timcade waxa uu kamid ahaa maansiyahanadii calansaarka raadka weyn kaga tagay calankan sugaynayeen sangiisayno سرما ويدو هلاعلايو زغل مانتا ضرورادو سيغادينا غميدايو زغدهان وهينه كيسو ساراي عدعدو سماكي وكايه حديغا مدلسيايو ساحركي كالغوره سريو منسقامو أنسدو ياهي إغنوه كنسيب كنصار ساهدين تا إسلام كوي سبع ساجم عياشيو سبيان تايو هوانكو علن كيسات شينو إذنا كان ينسينين ساتر نوغو يبايو زاهركي كالغورة سريا من نسقامو أنسدو ياهي إغنوه كنسيب كنصار
4 cisho ayay Somaliland xornimadeeda kaga horeysay Soomaaliya iyadoo ay aqoonsadeen 35 dal oo ay ka mid yihiin xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka qaramada midoobay balse jacayl ay bulshada u qabtay Soomaali mid ah ayay Somaliland la midowday Soomaaliya oo iyana markaas xornimadeeda qaadatay 1 July 1960 iyagoo damacoodu ahaa in lagu soo daro dhulalka Soomaalida ee ka kala tirsan Itoobiya iyo Kenya iyo Jamhuuriyadda Djibouti oo markaasi ku jirtay gacanta gumeystihii Faransiiska fanaaniinta Soomaalidu waxay ahaayeen kuwo aan ka daalin u baaqida saddexdii maqnaa dadka reer Djibouti nin xornimo u jeeda jalaafada gumeysiga kama joogsanaaye وعينيذن جيدان استعمارك جيبسان وعينيذن جيدان استعمارك جيبسان مدى أدونك ددك الله أبوري ويكسويهيني نفي أيالي إلفا كسيو نفي أدالي إلفا كسيو نفي أدالي عنك أكتوغنا أركم عنايا كايرا لناينو لا أدونسن ماي لا أدونسن ماي doonistii Soomaali weyn waxa ay ku soo ilaatay Somaliland oo 1991 ku dhawaaqday inay xorriyadeedii dib ula soo noqotay Soomaalida Itoobiya iyo Kenya oo weli ka mid ah dalalkaasi Djibouti oo noqotay jamhuuriyad madax bannaan iyo jamhuuriyadda Soomaaliya oo isku bedeshay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Axmed Maxamuud Yuusuf